Soomaaliya waa dal walla ku manaystay khayraadka dabiiciga ah. Waa dhul beereed ku habboon wax soo saarka beeraha, kaasoo baaxaddiisu gaarayso in ka badan 83,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran. Waa dhul qani ku ah carro bacrimin ah, cimilo kala duwan iyo webiyo taariikhi ah oo awood u leh inay quudiyaan malaayiin qof. Sidoo kale Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda Afrika, taasi oo dhererkeedu gaarayo in ka badan 3,333. Waa bad hodan ku ah khayraad badeed, kalluun noocyo kala duwan, macdan badeed iyo fursado dhaqaale oo aan weli si buuxda loo adeegsan. Beeralaydu weli waxa ay ku tiirsan yihiin farsamooyin hore. Khayraadkeena badduna waxa uu u badan yahay mid aan cilmi ku dhisnayn. Haddaba si xal loogu helo caqabadahan, loona dhiso jiil dhalinyaro ah oo u diyaarsan ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah, Jaamacadda City Coast University waxa ay ku soo kordhisay kulliyadaheeda khayraadka dabiiciga ah sida cilmiga badda iyo beeraha. sidaan wada ognahayna khayraadka dabiiciga ah wuxuu leeyahay muhiimado aad u ballaaran, muhiimad dhaqaale, muhiimad mataqaanaa deegaan iyo muhiimad aqooneed intaba uu leeyahay. Iyadoo marka jaamacaddu ka duuleysa muhiimadahaas kala duwan iyo baahida loo qabo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ayay soo kordhisay jaamacadda City Coast kulliyadda khayraadka dabiiciga ah si looga faa'iidaysto khayraadka dabiiciga ah. Inta badan waxay jaamacaddu xoogga saartaa in ardayda loo diyaariyo xirfad ahaan. Waxaa loo diyaariyaa tababaro kala duwan oo la xiriira cilmiga ay baranayaan. Tusaale ahaan ardayda baranaysa marinisku ama marine science-ku waxay inta badan practical ku qaataan badda sababtoo ah aqoontooda waxay la xiriiraa badda. Halka ardayda beeraha baranaysana ay leeyihiin field u gaara oo jaamacaddu u diyaarisay oo isugu jira mataqaanaa nidaamka beerashada casriga iyo nidaamka normalka labadaba si ay mataqaanaa ardaydu u kasbato aqoon fara badan iyo xirfad isku dhafan oo la xiriirta ka faa'iidaysiga. Dhanka kale kulliyaddu waxay xoogga saartaa ama inta badan ka shaqeysaa in wax laga ogaado mataqaanaa khayraadka dabiiciga ah. Waxaa hadda gacanta lagu hayaa ilaa 11 daraasadood oo dhammaantood la xiriira badda iyo beriga labadaba. Si ay jaamacaddu u diyaariso dhalinyaro fahamsan khayraadkooda dabiiciga ah una xaliso baahiyaha waxbarasho ee kulliyadahan loo qabo, jaamacaddu waxay fursad dhiirigelineed uga dhigtay ardayda. soo bandhigay fursadan barashada culumta badda ama marine science-ka. Runtii waxay ahayd fursad baahi weyn loo qabo, laakiin dadkii baran lahaa aysan ku baraarugsanayn. Waxa taas ka sii daran kulliyadda iyadoo ay tahay kulliyad baahi inta laga loo qabo. Markii la sheegay oo la yiri waxa jirta kulliyad marine science la yiraahdo ay bixinayso jaamacadda City Coast, waa rumaysan waay waxa yiri kulliyadaas baahida inta laga loo qabo si loo dhihi karaa waa full scholarship. Waxay marday kooban baa mise waa galaasko dhan. Wax waa galaasko dhan. Yaa bixinaya waa ay rifan gareynaya. Su'aalaha isweydiiyay bay kamid ahayd. Waxa la yiri rag ka tirsan maamulka jaamacadda isku xilqaamay in kulliyadaas arday baranaysa la helo kharash kasta iyo wax walba ay u baahan yihiin 4 sano ay baajka diyaarinayaan ayagu iska xisaaraan. Marka waan doortay runtii expectation-ka ka qabay ama filashadan ka qabay kulliyadda mid ka weyn baan aan helay. in khayraadka dalka la barto wax aad iyo aad u qiimo badan kumana baraarugsanade haweenku inay baran karaan. Waxaan leeyahay anigu baahi ka weyn ma jirto inaan barto marine ama resources-ka kale oo magaranaysa ay ka mid tahay agriga oo kaleeto. marka aad baa ugu faraxsanahay. taasina waxay ahayd riyadayda waan ii rumowday alxamdulillaah. mustaqbal weyn baa ka leeyahay inaan kaftan noqdaa rabaa, inaan navigation noqdaa rabaa, inaan maxaa la dhahaa research sameeyaa rabaa, waxyaalo badan baa rabaa inaan sameeyo. Waxaa intaasi dheer, jaamacaddu waxa ay ardayda siisaa practical fara badan ayagoo si toos ah u taga xeebaha iyo beeraha si ay indhahooda ugu soo arkaan una soo shaqeeyaan wixii ay fasalka ku soo barteen.